howlgalka nadiifinta jidka rajada Soomaaliya qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya oo ay adag tahay tegistiisa ciidanka amniga ee PSF ayaa bilaabay howlgal xasaasi ah oo loogu magac daray nadiifinta jidka rajada Soomaaliya ujeedaduna tahay soo celinta rajada amniga gobolka oo ay ragaadiyeen dhaqdhaqaaqyada xagjiriinta xilli habeenimo ah heelanayaasha heeganka ku jira habeen iyo dharaar PSF ayaa waxa ay ku dhiiradeen inay galaan deegaano fog oo lagu yaqaano joogitaanka mitidiinta iyagoo ujeedkoodu ahaa inay carqaladayaan howlahooda soona celiyaan xasiloonida dabagal iyo xuuraan dheer kadib xog ay heleen ciidanka PSF ayaa abaabulay howlgal lagu wiiqayo fariisimo ay ka sameysteen meelo u dhow wadada halbowlaha ah ay isticmaalaan dadka shacabka ee u socdaalaya magaalooyinka Xamure baladidin iyo deegaano badan oo dhacato gajeceel waxayna ciidan ku tageen madaxa koronkoro oo ah goob muhiim u ah kooxda gobolkeedu sii dhacayo ee Daesh halkaas oo ay geeyaan dadka ajnabiga ah oo u socdaalaya Daesh kuwaas oo u bareeray inay daadiyaan dhiiga labeenta bulshada Puntland sidoo kale ciidanka PSF ayaa tagay deegaanada Daylaan iyo Tuulo Dharaar oo ah halka ugu sokaysa ay deegaamisteen garqabayaasha arxanka daran ee Daesh PSF ayaa xog ay heleen oo asalkeedu ahaa in Daesh ay socoto ku yimaadeen qaybo ka mid ah toga jeceel ciidanka ayaa halkaasi gaaray kooxda naflacaariga ah ee Daesh ayaa bilowday kala carar iyo inay dib ugu noqdaan halkii ay ku dhumaalaysan jireen ciidanka PSF iyaga oo muujinaya dadaalkooda iyo adkaysigooda ku aadan soo celinta nabadda amniga gobolka caqabadaha iyo guulaha howlgalka ayaa hoosta ka xariiqaya sida ay uga go'an tahay PSF inay ilaaliso bulshada iyo kor u qaadista rajada mustaqbalka ifaya ee Soomaaliya